qormadani waxaanu ku eegi doonaa warbixin laga qoray qisada basaaskii u dhashay dalka Masar oo sirta dalkiisa u gudbin jiray Yahuudda xilligii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Israa'iil iyo Carabta. ninkan waxa uu ka howlgali jiray madaxtooyada dalka Masar isaga oo la soo shaqeeyay labadii madaxweyne ee dalkaasi soo martay xilligii u dhaxaysay 1960 ilaa 1975. qoraa u dhashay Israa'iil oo lagu magacaabo Barjizofo oo daraasada ka sameeyay heerarkii kala duwanaa ee howlgallada sirdoonka Carabta iyo Israa'iil isku adeegsadeen ayaa tooshka waxa uu ku ifiyay mid ka mid ah kiisaska ugu xiisaha badnaa ee basaasnimo ee soo dhaxmara taariikhda dagaalkii dhaxmaray Carabta iyo Israa'iil. 43 sano kadib dagaalkii 1973 ee u dhaxeeyay dalalka Masar iyo Suuriya isku dhinac ahaa iyo Israa'iil waxaa soo ifbaxay buug cusub oo uu qoray qoraal reer Israa'iil oo lagu magacaabo Yuri Barjizov oo daaha ka fayday qisooyin mid ka mid ah kiisaskii ugu xiisaha badnaa ee la xiriira howlgalkii basaasnimo ee soo maray taariikhda dagaalkii u dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil oo sheekadiisa ilaa iminka la hadal hayo. warbixinta laga qoray qisadan waxa uu Barjizov oo kaga sheekeynaya mid ka mid ah basaasiintii reer Masar ee ugu waaweynaa uguna waxtarka badnaa intii lagu jiray xilligii dagaalkii Yom Kippur. basaaskaasi oo fursad u helay in uu kaga dhawaado madaxtooyada Masar iyo goobaha go'aamada adag laga gaarayo dagaalka ka hor iyo kadibba ay ka dhigtay basaas nuuciisa oo kala ah mid mar la arag yahay oo Israa'iil ay fursad ay ku heshay kaga faa'iideysatay. basaaska reer Masar oo lagu magacaabi jiray Ashraf Marwan ayaa waxa uu ka howlgali jiray xafiiska madaxweynihii Masar ee xilligaasi Jamal Abdel Nasser. waxa kale oo la soo shaqeeyay madaxweynihii ka dambeeyay Anwar Sadat. intii uu ka shaqeynayay howlgallada basaasnimada ahayd waxa uu kaalin muhiim ah ka geystay una suurtageliyay Israa'iil in ay ku guuleysato dagaalkii 1973 oo markii hore lagu jabiyay hadday tahay furimaha hore ee dagaalka ay kaga jireen ciidamada Masar iyo kuwa Suuriyaba. sheekada uu soo tabiyay qoraagan ayuu si cad waxa uu ugu muujinayaa Marwan inuu yahay haliyay ka tirsanaan jiray sirdoonka Israa'iil ee Mossad oo shakhsi qaali ah oo agtooda ka ahaa, laakiin waxa kale oo carabku uu ku adkeeyay in Marwan dalkiisa uu ka ahaa qaa'inul wadan sirta wadankiisa ka iibiyay cadow xilli dagaal lagu jiro. inkasta oo Marwan magaciisa qarsoodida ahaa Angal oo sirdoonka Israa'iil ku wargeliyay xogtan 24 saac ka hor inta aan la qaadanin weeraradii lama filaanka ah ee Carabta waxaa kalsoonida lagu qaba kor u sii qaaday xogtii hore ugu soo gudbin jiray qorsheynta dagaalkii militariga Masar ee sababtay in Yahuudda ay si toos ah ula socotay dhaqdhaqaaqii militariga ee Masaarida. Barjizov waxa uu buugiisa ku soo bandhigay su'aalo muhiim ahayd oo ay bahda sirdoonka caalamka iyo dadka shacabka ahiba ay 10 sano ay wax iska weydiinayaan qisadan basaasnimo ee Marwan. su'aashan ayaa sababtay basaaska Mossad ay ku kalsoon tahay oo qaadanayay lacag u dhaxaysa 50 ilaa 100 kun oo dollarka Mareykanka ah markasta oo sir uu soo gudbiyo iyo in la siiyo hadiyado kale oo kali ah 24 saac ka hor sababtoo u soo gudbin waaye weerarkii ciidamada Carabta muxuu u soo gudbin waaye maalmo amaba toddobaadyo ka hor ayay tahay su'aalaha la isweydiinayo. Barjizov waxa uu sheegay in Marwan xogta weerarka uu ku ogaaday si kadis ahayd isaga oo ka helay macluumaad qarsoodi ahayd xilli uu ku maqnaa London. wuxuu markii dambe Marwan telefoon uu ku dawaniyay xarunta Mossad isaga oo ka dalbaday in madaxiisa uu la kulmo sidii horeyba oo uu sameyn jiray markii uu xogta u soo gudbinayo si uu ugu digo dagaalka ku soo socda ee dalkiisa ama wadankiisa. Barjizov sida buugiisa oo ku xusay waxa uu si xeeladaysan meesha uga saaraya aragtida ah in Marwan uu ahaa basaas u shaqeynayay labada dawladood oo kali ah go'aansadayna inuu ku wargeliyo Israa'iil weerarka 24 saac ka hor dagaalka xilliga kama dambaysta ah. qoraagu waxa uu ku doodayaa in sirdoonka Masar aysan marnaba awoodin inay adeegsadaan qof xiriiradiisu sareeyaan sida Marwan oo isagu qabay gabar uu dhalay madaxweynihii Masar xilligaasi Jamal Abdel Nasser iyo in uu noqdo basaas laba wadan u shaqeeya iyaga oo ka cabsi qaba qataraha doorka noocaasi ah ay keeni karto. waxa kale oo ku doodayaa in sirdoonka Masar ay ahaayeen hiwaayad isla markaasina aanay fulin karin nooca howlgal casri ah ee basaasiinta laba wajiilayaasha ah ee ay u bareereen hay'adaha sirdoonka ee reer galbeedka. sida uu qoraagu uu sheegay Israa'iil way ogeed in shaki aanu ku jirin dagaal inuu imaanayo. sirdoonka Israa'iil ayaa sidoo kale ogaa in Masar aanay lahayn awood militari oo ay ku qaado dagaal saf ballaaran ah si ay dib ay ugu soo qaadato ama ugu soo ceshato dhulka Sinai oo dhan.
ciidamada Anwar Saadaad sida ku cad xogihii basaasnimo ee Marwan waa ay ka awood liiteen militariga Israel waana ay ka itaaliyaraayeen sida ay masaaridu ay saadaalinaysay in ay noqon doonto dagaalku. waxa uu Barjusufo ku doodayaa in marka laga hadlayo fashalka sirdoonka Israel ee dagaalkaasi sirdoonka militarigu waxa ay isku qunfileen in ay saadaaliyaan amaba ay ku jahawareereen sida loo saadaalin karo xogaha Masar laga heli karo ee weerarada ay Israel ay ku soo qaadi karto. taasi waxa ka dhalatay ismaandhaaf u dhaxeeyay taliyihii sirdoonka militariga ee Israel Al-Zaire oo isagu uu ka fakaraya xaaladda dagaalka ee shakiga ka qabay xogaha basaasnimo ee Marwan iyo agaasimihii hay'adda sirdoonka ee Israel Mossad Zamir oo isagu kalsooni buuxda ku qabay Marwan iyo xogaha uu soo tabinayo. Ashraf Marwan waxa uu ahaa basaas noociisa oo kala ah aan la heli karin. waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo jiray da'da 20 sano. waxa uu qabay gabar oo dhalay madaxweynihii Masar Jamal Abdel Nasser. waxa uu ka shaqeyn jiray xafiiska madaxweynaha marka xaaladda guud la eego kuma uusan jirnin xaalad ku kalifi karta inuu soo wajaho sabab muuqata oo sirta dalkiisa uu uga iibiyo cadawgiisa. qoraaga buugga waxa uu sawirayaa wajiga taariikheed iyo maskaxeed ee Marwan kaasi oo sharaxaad ka bixinaya wixii ku dhiirigeliyay inuu ku kaco qiyaano qaran oo wadankiisa cadawgiisa kaga iibiyo xogaha sirta diyaaradaha dagaalka iyo kulamada uu madaxweynaha dalkiisa oo la yeelanayo hogaamiyaasha midowga Sofiyeeti iyo Carabta kale ee uu kala hadlayay xaaladda dagaalka. waxa uu qoraagu uu sababaha ninkan uu ku kalifo oo ku sheegay kuna micneeyay laba arrimood midkood. waata koowaade waxa uu ku sheegay inay heysay baahi nafsaniyad ah oo lacag oo han weyn u qabay si uu u helo lacag badan iyo in uu ka argoosto madaxweynihii dalkaasi Masar oo ahaa sodogiisa kaasi oo aan weligiisa aaminin isla markaasina aanu xil u dhiibinin. Ashraf Marwan waxa uu shaqadiisa basaasnimada Israel bilaabay sanadkii 1970 kadib markii uu la xiriiray safaradda Israel ee magaalada London oo waqtigaasi uu ku noolaa. waxaana uu u soo bandhigay inuu u adeego si uu ugu iibiyo sirta dalka Masar. inkasta oo in muddo ah ay ku qaadatay in Israel ay iska hubiyaan in aanu ahayn basaas laba garqaata ah kadib markii xogihii la helay iyo sidoo kale tijaabooyinka lagu sameeyaba lagu ogaaday in aanu ahayn basaas laba garqaata ah ayaa sidaas lagu soo xirigeliyay. laga soo bilaabo waqtigaasi waxa uu noqday basaas u shaqeynaya Israel oo in ka badan muddo 3 sanadood ahayd u shaqeynaya ilaa laga soo gaaro sanadka 1998. shaqadii Marwan uu qabtay dagaalkaasi oo lagu magacaabo Yom Kippur oo muddo 7 maalmood socday waxa kamid ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee taariikhda ee Israel hesho. markii uu dagaalku u dhamaaday waxa ay Mossad waa hay'adda sirdoonka Israel ay ku abaalmarisay basaaskan lacag gaaraysa $100,000 Mareykanka oo ay ugu abaalgudeen xogtii u soo gudbiyay weerarkii qarsoodida ahaa ee ay qorsheynayeen militariga Masar. inkasta oo go'aankaasi badbaadiyay nolosha in badan oo Israa'iiliyiin ah haddana waxa uu keenay dhimashada in badan oo kamid ahayd muwaadiniinta Yahuudda. ninkan oo markii dambe noqday maalqabeen ganacsada ah ayaa si lama filaan ahayd u geeriyooday sanadkii 2007 kadib markii uu ka soo dhacay dhismo dabaqo oo uu lahaa oo ku yaala magaalada London. ilaa iminka lama oga sababta keentay in uu ka soo dhaco dabaqaasi laakiin cadowgii wadanka Masar ayaa halkaasi ku dhamaaday kuna soo gabagabowday taariikhdiisa iyada oo dawladda Masar ay gacanta hoose ay kaga cunaysa fursadna ku raadinaysa ay ku soo gacan geliso. daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa xogtii sirdoon ee Ashraf Marwan laga qoray. waxaan ahay Maxamed Cabdiraxmaan oo idiin soo jeedinayay ka mid noqo saaxiibada halkan nagu la jira. nabadgelyo.